haddii aad cusub tahay channelkeena fadlan saar subscribe kadibna riix calaamada gambaleelka. bismillaahi raxmaani raxiim. maalin wanaagsan daawadayaal, halkani waa Alifo Media. qodobada wararka maalinnimadan aan idiin hayno waxaa ka mid ah lamaano Soomaaliyeed oo ku aqal galay magaalada Kampala ee dalka Uganda oo arooskooda si aad u soo jiitay indhaha caalamka. waxaan idiin soo gudbin doonaa sidii arooskaasi u dhacay. waxaad kaloo maqli doontaan baaritaano lagu wado naag in muddo ah iska dhigaysa nin rag ah oo ku nooleed magaalada Gaalkacyo ayaan idiin soo gudbin doonaa. qarax la damacsanaa in dad badan lagu gumaado oo lagu fashiliyay Muqdisho iyo faahfaahino ka soo baxay ayaad maqli doontaan. qodobada caalamigana waxaa ka mid noqon doona 30 qof oo ku dhimatay burbur ka dhashay shil bas oo ka dhacay magaalada Accra ee dalka India ayaad maqli doontaan. Yahuudda oo gantaalo ku garaacday dhulka Falastiiniyiinta iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa ikhwaanu muslimiinta dalka Masar oo beesha caalamka ka codsaday in baaritaano lagu sameeyo geeridii Mursi. ku soo dhawaada qodobada wararka Alifo Media oo intaa ka faahfaahsan. lamaana Soomaaliyeed ayaa ku aqal galay magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda. lamaanahan ayaa arooskooda si aad u soo jiitay dhammaan indhaha dadka caalamka, waxaana sawirradooda si aad loo wareejinayay baraha bulshada, gaar ahaan barta Facebook ee Soomaalida sida aadka u isticmaasho. lamaanahan Soomaaliyeed oo ah lamaana si aad isku jecel ayaa waxaa la sheegay in labadan qof ee aqal gashay midkood uu yahay qof curyaan ah isla markaana ay ku qanacsaneed gabadhii la aqal gashay, waxaana dad badan soo jiitay sida ay iskugu qanacsan yihiin isla markaana ay iskugu sabreen. arooskan ayaa ka mid ah aroosyada ugu cajiibkasan ee adduunka ka dhaca. dhanka kale, baaritaano ayaa lagu wadaa haweeney muddo sanadaha iska dhigaysay inay nin tahay. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka soo yeertay arrin la yaab leh, taas oo sheegaysa in la soo qabtay Deeqo Cabdullaahi oo magaceeda u bedelatay Deeq, taas oo iska dhigaysay nin rag ah in muddo isla markaana xaasas badan soo guursatay. baaritaanada waxa ay sheegeen inay halkooda kasii socdaan. booliiska magaalada Mudug ayaa waxa ay Alifo Media u sheegeen in ay soo saari doonaan xogta rasmiga ee ka dambeysay sababta ku kaliftay haweeneydan in ay nin ragga iska dhigto. magaalada Muqdisho waxaa maanta la fashiliyay qarax la damacsanaa in dad badan lagu gumaado. gaari laga soo buuxiyo waxyaalaha qarxa iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa ay ku fashiliyeen meel aan ka fogeyn isbitaalka Soomaali Suudaneys ee magaalada Muqdisho. qodobada dibaddana waxaa ugu waaweyn 30 qof ayaa ku dhimatay burbur ka dhashay shil baabuur oo ka dhacay magaalada Accra ee dalkaas India. bas ay dad badan saarnaayeen oo marayay bundada Lama oo ku taala magaalada Accra ee dalkaas India ayaa waxaa ku dhimatay in ka badan 30 qof, waxaana dhaawac la sheegayaa in halkaasi uu ka badan yahay. lama oga sababta keentay shilkani, balse booliiska magaalada India ayaa sheegay in baaritaano ay wadaan dhimashadan halkaasi ay kasii badan karto. ciidamada Yahuudana waxa ay gantaalo ku garaaceen dhul ay degan yihiin dad Falastiiniyiin ah. in ka badan 15 qof ayaa ku dhimatay, khasaarana ka soo gaaray gantaaladan la sheegay in lagu garaacay dhul Falastiiniyiin ah oo ay degaan shacabka Falastiiniyiinta. ugu dambeyntiina ikhwaanu muslimiinka dalka Masar ayaa beesha caalamka ka codsaday in baaritaano lagu sameeyo geeridii Maxamed Mursi. dad badan ayaa aaminsan in la dilay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi isla markaana uusan caadi u dhimanin, waxaana la sheegay in madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi uu ka dambeyn karo shirqoolka lagu dilay madaxweyne Mursi. ikhwaanu muslimiinka dalka Masar markii uu xilka qabtay Cabdilfataax al-Siisi waxaa loo aqoonsaday inay yihiin urur argagixisa, balse ma jirto meel ka mid ah dalka Masar oo xarun ay ku leeyihiin. hayeeshee warkan ay soo saareen ayaa waxa ay ku soo qoreen bartooda ugu weyn ee ay ku isticmaalaan aaladda Facebook-ga. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen Alifo Media waa naga intaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad taabato si maalin walba aad u hesho wararka ugu waaweyn caalamka.